بسم الله الرحمن الرحيم. أنا واحد وين اسمه عدالة الدنيا الكويت قبل كتير waxaan maanta halkan ugu soo halkan ka tacsiyadeynaya marka hore intii dhimatay ee u dhimatay xanuunka shubabiyoodka inta xanuunsanaysa waxaan Ilaahay uga baryayaa caafimaad degdeg ah oo sariic la siiyo waxa weyn hayo kulli maamulkii iyo maamulka ay dooranayeen wuxuu dooranayeen hawshan ay qabtaan golaha deegaanka maayirku ugu horeeyo oo hogaaminayo maayirku iyo xildhibaanada intiisa kale ayaa horta waxa noogu wacan sababta koowaadna waa iyaga waxana wuxuu ka dilaacay waa fayraska iyo biyaha dhulka waran raxmaadkii markuu Ilaahay noo shubay abaarki oo inaga soo furtay abaarihii raxmaadkii inoo daay ayuu horta ka bilaabay raxmaadkii inoo daay ka bilaabatay ayuu xanuunkan ka bilaabay sababtu waxa weeyaan biyaha wadooyinka waran meel kasta waran suuqyadii waran xanaanadii dhexe ee gobolka caafimaadka horteeda waran taas weeyaan hadii kulli waxaan si degdeg ah wax looga sii qabana deegaanka si badanaysayo maanta ka hortaga Soomaalidu waxa tiraahdaa ka hor daaweynta waxa ka wanaagsan ka hortaga marka waxa leeyahay hadii aan ayda waxba qaban karaynin golaha deegaanka si ahaan golaha deegaanka iyo wasaaradda caafimaadka haddaan waxba aan qaban karaynin oo hawshii loo igmaray ku fushalmeen in si degdeg ah xilka uga degaan iyaga saas ay sharaf dhaanta oo waxa loo si wanaagsan uga dega oo iscafila waxba ma qaban karo eeygu ma hayd eeygu ma hada tiraahdo waxba ma qaban karo waxa weyn arba qaban karo iga qabta hadda tiraahdo taageeraynta haysatay leegba sii haysa kulli waxba ma haysidi waxaan qabaa hadda tiraahdo waan si degdeg uga degaya ina taageero wanaagsan ka soo baxayso billahi tawfiiq. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.